Folks, this is one of the best stories I've heard in a long time. Folks, this is one of the best stories I've heard in a long time. Folks, micnada hore usoo sheegay fadlan haddii aad xasuusad nugula wadaag qaybta commentska. This is one of the best stories I've heard in a long time. Tani waa mid ka mid a sheekooyinkii ugu fiicnaa aan maqlo waqti dheer. My next guest is a 16-year-old entrepreneur who made national headlines setting up an illegal candy business. My next guest is 16-year-old entrepreneur who made national headlines. Martideeda xigta waa 16 jir ganacsade ah taasoo kasoo muuqday ciwaanada wararka qaranka setting up an illegal candy business asigoo aasaasaya ganacsi ninac oo sharci daro ah. Candy waa ninac ama candy waxaa kaloo dhihi karaa wax walba sokor ka samaysan oo lagu daray dhadhan. Setting up way micno badan tahay laakiin halkan waxay ku jirtaa hadda sida establish oo kale oo ah in wax la aasaaso. That he ran out of the bathroom of his school. And get this, he made about $33,000. That he ran out of the bathroom of his school. Kaasi oo ka maamulayay musqusha iskuulkiisa. Ran markan waa maamul. And get this, he made about $33,000. Get this badan waxaa loo isticmaala qof marka aad tashinkii soo jiidanaysid. He made about $33,000. Wuxuu sameeyey ku dhawaad $33,000. You have got to respect the hustle. Thank you very much. All the way from England, everybody, please welcome Nathan John Baptiste.